ilaahu addoommadaadii yaryaraa baanu nahay ilaahu kuwaad candhuufta ka abuurtay baanu nahay ilaahu awood malihin ilaahu ada awood leh ilaahu horta noo dabdhaaf dunuubtayadii dunuubtii waalidkaya ilaahu noo dhaaf ilaahu na ilaali meelaan joognaba ilaahu dalkii dadka noo hagaaji ilaahu ubadka noo hagaaji ilaahu ooriyaha hagaaji ilaahu odayaasha hagaaji ilaahu na toosi ilaahu xaqa nagu dil ilaahu anagoo muslima na oobso ilaahu naxariistaadaan ku wajeysan ilaahu kuwa isku naxariista naga yeel ilaahu reeraha dhisan noo deji ilaahu kuwa soo socdana noo deji ilaahu kuwa kala tegayna isu soo saqir ilaahu naga yeel kuwa ubadkooda iyo oryahooda u naxariista oo qalbigu u dabco oo ilaaliya oo xaqooda siiya ilaahu kuwii wax dulmiyaha naga yeeli yaa rabbi ya allah ilaahu kuwii wax dulmiyaha naga yeeli daran mid dooraa lay dhahay saaxiib inaan wax waliba wadankayga xataa markaas ma joogin oo ani reer muqdishaan ahay oo yani qof meel gobol uu ka soo jeeda ani muqdishaan ka soo jeeda ninka ani ilmaha u dhalana reer jigjigo ahaa bacdeen jigjigo markuu igeeyay waxaan galay yani abiyus badan aan dareemay markaan dareemay xabsiyaa la dhigay waxa leena naagtan xamaray ka timid ilmaheena rabtaa inay igala fakato iga saxiixa ilmaheygii أنا وحائري المهيجة وحياتي كوبات مد اللبات تنسدحات مرنا صحيح ما يعري مر عن صحيح عمله وقوري كراها عري حبسيجا لأنه هدف كله هاي محوية لأنه هدان صحيحه أنا استيران نفس هذه بدبادي بري وراقة يهرتها الله ما يعري أنا صحيح ما من الصحيح هاي واحد راكرا إن جبرا يقول تمد حبسيجا إن قضية أسكوعين هنا قضية قصة ضمنتي ayadoo sidii lagu kala joogo ayaa gabdhihii mid kamid ah jiratay waa booqday gabartii kale waxaan u tagay timihii aan laga shalaynin tii kale waxaan u tagay dayacan yaani waxa walaal hooyaan ahay labadan gabdhood waa soo wadaa midna waxa ilaaday oo ujeeda nadaafad darra ka muuqato hooyadeeda ahay kulay wali adiga inoo dhaxaysa ilmihii soo hagaajiyay tan dhakhtaran geena ilmahaygii habeen madooban jigjiga horta kala soo raacay baawur dheereeya leeyna hadda saddexda cunug wada wato ودرامي لها إن يعني علمي وضوضاء ما دارين سي ويلكي أو سوتة وها يصير ويل نرجع وايه سكستا أو يعني نرجع الله حماية وكسر بحر لبعتها يستقبله كذا يعني قبر وحكي عيب بدل ماله أنا والله بين مفوشة جايها بين مدو أيان جيك كسر عباور دارية أو الله يمشي يا أن جيجا كسر راعي حمر عيمد هذا أنا لما دي قبلود أنا إلى نوليهن وحما أنت أول سنة هاي أن كفكروا أو أنا لا شيء ذا مالطي هبين والبمركان ساحة أما أن يعني يقصوا ويل كيجي هرتاجن فالكوار الناق تشن عنقه دش أما تورتي أما نينك شن عنقه ولا مال علا أغتجي نينكاس يناقص محندي كرا وحندي كرا يعني كم ما هبونا بيني وحنا لا ولا المعاني lagu sheegay afka weyn ee faarax ma jabaastaha caloosha weyn la ka fadhiyo waxaan leeyahay naag kasto akhlaaq waa la fara ku hayo taa hadii la faro waliga la isfurayay faarax anaka wax ka dhignay wallahi billahi tallahi xaliima wax ka dhigtay dhan oo ayada ku dhacayso asagana uu ama qaxwada uu taagan yahay ama uu nin saaxiibkiisa oo gurigiisa joogo ama uu taxi driver ama bus driver oo yahay at least wuxuu soo shaqeynaysan ku caawihaynin muxuu marka وصار أقول وانا سنة وكان فمان مركا نينكا واي مركا نينكاس إلهن كو داري وحاصل نيجا وتشيدا أيه وكسر ملدهين وايو أبيوسك هو يا نقص سماء أيه إذا نقص سماء بور رايو سماء من حيو because ماشي نحدين تعمدو لحامد قصير أو مرسم ماشي درينك من ذا كله المهني سو ما important تقص المهني ما وايسك سكتم ولا يالي ودولة النجاة تشيل ورا هذيكو هدي حتى لقاعدة تشيل وحمالك تسوق هذا دركتها قف كريجي سود بكل عينه وما دورنا كسوق هذا تمام كمليان عرور لبعتك كمليان عرور يا أدونك كوبا باسم أو الجرب قبض كاجي رجعني ما دادي أتقرن لهاي وقيران حتى أدران لهاي يا ورا طيق قيسسكي بربرين بل إنه حقوق ذا الماء إنه حتى الرادين إنه حقوق ذا عرورته كمان يبلف الطبيعة هذا كاهل كده كور الناس تحاول مكدر هذا يسكت عنه ما أنتوا إذا لف الطبيعة عرورته ده كبعيسة فعل كاس ما ركتي وحي أركان أباي إن وحنكي أباي رجع قار ما ده هاي بقول كيف بقول كلي ما ده هاي because بقول كيف بقول
qaar fiican inay ku jiraan marka waxaan laakiin aan ka yaabay niman sameeyhaya maaragtay isku filan walaashay waxaan doonayay inaan kelmad iga soo baxday hadalladiina inaan kaga sii tago oo aan u arkay talo صح waana sii baxaya ducana waan doonaya kusoo gabagabeeyey mahadsanid sheekhow soo dhawow horta dumarka talan siinaya dumarow ma doonaysaan gurigiinu inuu deganaado caruur idinku dayacmin odaygu idinka cararin ma doonaysaan gurigiinu inoo dhisnaado ma rabtaan markaad ninka dooranaysaan يس war ku doorta labadii kelmadood ee nebigu yidhi ku doorta waa labadee waa akhlaaq wanaagsan iyo diin calayhi salaatu wasalaam ha odhan waa surwaal iyo shaadh buu sitaawn ha odhan waa ninuun الله رم بدنا akhlaaq iyo diin ku dooro inankaad doonayso inaad guursato ها شيخ yaad لا غيبة يراها قبله إيموشن كود وانو حكوا شقيا ما كان نيكا جعلاته نيكا موجودة ها ناق ما كسر قال qalad waxaa soo dhow waa qalad reer ragga naagaha qabana ha ka dubinin reerahooda ha kala bixi waa dembi kaaguna sii dhisnaan maayo walaashayda muslimadda يو قبيا walaashay muslimadda waxaan leeyahay adigu hagaag gurigaa ku hagaagay caruurta ku hagaagaysa ninkaa ku hagaagay hagaagsanow ilaahay ku xidhnow ilaahay caabud xaqa lagugu leeyahay bixi khayrka ka shaqee gabadh wanaagsan oo saalixada noqo haddii aad nolosha ku hagaagi weydo aniga ii kaala been baan sheegaya ilaahay baa ballan qaaday ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisu ku ballan qaaday waman yataqi illaaha yajcal lahu makhraj sadaqa allahu alcadiim ilaahay run buu sheegaya wallah qofka ilaahay ka baqa faraj baanu siinaa weersaga waxaysu la yaxtasib waxaanu ka arsagnaa meel aanu ka filanayn waxaad rabto meel aad ka filanayn baa lagaa siintaad ilaahay ka baqdo intaas waa talada aan haweenka siinaya raggana waxaan leeyahay war niman yahow meesha mawduuca yaalay wuxuu ahaa ubadka aabbahood ka tegay ha u qaadanina in gaar laydin maagayo la gaar cidina idin maagayso isku filana gaar idinma doonayso in isaga la haysto isku filana cidna ma soo diyaarsan gaarna ragga u maagi mayso laakiin waxay ka hadlaysaa dhacdo jirta qorbaha ku badan oo dumar raggii ka tageen caruur jiidanaya maxaan kula silcaya waa qorbe wehelkuuma joogo jaariyad male cid ku caawisa male waa keligeed waxa weeye caruurtii waa waxaa yarar soo kacaya dhibkaasi wuu ku badan yahay qorbaha yurub baan joogaa inta yurub joogtaa ila fahmaysa meel walba waan ku arkay in badan baan bulshada ku dhex jiray reeraha waa dhex galaa waa sukeena waa heshiisiyaa waa ka dhex shaqeeyaa islaaxooda iyo wanaagooda waxa weeye dhibka jiraa dhib badani wuu jiraa oo yurub way naga haystaa dhaqaale ha u badnaado walaalayaalow dhaqaale wax ma taro wallaahi godun baa lagu shubaya waxaanu helno aan eegno mustaqbalkeena iyo qoysaskeena dhismihiisa aan eegno ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye wiinoo naxariiso kaas u naxariisano yarxamakum fil ardi wayarxamakum fi samaa u naxariiso caruurtaada u naxariiso sawjadaada u naxariiso ninkaaga isu naxariista haddaad naxariista ilaahay rabtaan waxaan kusoo koobaya su-aalan qabaa shiiqo dhamayso su-aalan qabaa dhamaysoon su-aashaydan ku weydiin lahaa waaba ducadan bilaabi lahaaba waan dhameeyey haye su-aashaydu waxay tahay ragga mas-uuliyadooda la saaray xaasaskooda iyo ilmahooda haddana le wax yaroo dowladda ay ku caawisanaa adigu dowladdaa ku biishay xaq iguma lihid iga aamu ama moodo ilmihiiba inay hooyadii ay u haysato waxa yaray dowladda ay kusii hayso odow ayna wax ku taraynin xataa waxaas yar maxay diinta islaamka ka qabtaan ilmahoodii aan rabin inay biishaan walaashay sheekooyinka adigu waaba di weydiisay anuu life baan uga garnaqay laba qof oo intaas ku haystaan u garnaqay gartoodii baan galay waxa weeye haddii ninku nin muslima yahay diinta ku dhaqmeye yahay wanaagsan yahay ilaahay wuxuu amray iyo rasuulkiisa raacsan hadduu yahay calayhi salaatu wasalaam gabadha iyo guriga iyo wixii soo galaba gabadha mas-uul buu ka yahay caruurta mas-uul buu ka yahay dowladdu waxay siisana sidaa ka mas-uula laakiin ninkaasi waa ninkee waa ninka ilaahay ka baqaya ilaahay ku xidhan daacada
reerkiisii carruurta jecel xaqooda siinaya carruurta iyo wixii soo galayba mas-uul buu ka yahay ima markay kala tagaan baa timi markay kala tagaan carruurta dowladdu waxay siinayso ma ayagoo isla jooga u kaadide ayagoo isla joogo ciyaalkii asagaa ka mas-uula laakiin lacagtii dowladda ciyaalka siisay ma rabo inuu si saxa ilmihii u siiyo haddii ay tiraahdo hooyadii sidaani waa qaladne naashalaba anaa ku keenay ama anaa ku haayay maxay tahay waxa aad samaynayso ama mana rabo ilmihii inuu ku caawiyo wixii yaro dowladda sii haysana asagaa ka mas-uulihiyo gurigii mana rabo hooyadii inuu caawiyo oo gurigii ka caawiyo so ninkaasoo kale maxaa lagu tilmaami karaa waa dhacdo run baad sheegtay waa wax jira wallaahi waa wax jira waa sheeko jirta oo dhaba sheekooyinkaasi way jiraan daas waan ku weydiiyaa waan ogahay wax badan aan ogahay oon qarihay weliba oo dad badan aan kala dhex galay nin noocaasina wuu jiraa ninka horta waxaan leeyahay ilaahay ka bad mas-uuliyadda ilaahay ku saaran ha ku ciyaari kullukum raaciyu kullukum mas-uulu can raaciyati mas-uul baad ka tahay waxaan lagu raaciyey haddii ilaahay mas-uul kaaga dhigay gabadha iyo carruurta iyo dakhliga reerka soo gelayaba gabadha waxay gaar u tahay iyadaas ka leh taa mas-uul kama noqon kartid dowladdu waxay gabadha gaar u siiso hantida gaar u soo gasha hadday soo shaqaysato iyo haddii dowladi siiso taa ma dabageli kartid laakiin carruurta wixii soo galaya iyo adiga wixii ku soo galaya iyo qoyska wuxuu ku soo biiraya shar iyo khayrba adaa lagala xisaabtamaya waxaa weeye haddii aad sidaa tahay ninow janno waad jeceshahay soo maaha jannaad ku waayeysa waayo waxaad noqonaysaa dayuusku maaha ka uun maxay gabadha diinta koo toosin waaye kaa un maaha dayuusku wuu fara badan yahay waa ka ubadkiisa xaaskiisa dayaca ee dulmiya kaasba dayuus buu noqonaya waxaa weeye dayuuskuna janno ma galo waxaa weeye walaalayaal waxaa weeye ragow markay xaalku halkaa maray inantaasi siday sheegayso waxaa weeye markay halkaa marayso xoolaha reerka soo gelay ee gaalada ilaahadii ka siiyey meel qaldan ha ku bixin carruurtan wuxuu ilaahay kaaga soo qaaday gaalada ee siiyey ku hagaaji gabadhana ku hagaaji adigii saddexdooduma isku hagaajiya ninkaa sharciga sida laga yeelayo in loo dulqaato waxaan ahayn garan maayo walaashay waayo waa qoys dhisanna in bilaa lagu abuuro maaha in loo dulqaato ilaahay soo hadeeyo ayaa laga yaabaa u ducay ilaahay u bari ilaahay inuu ku soo hadeeyo baari kuu noqdo ayaa suuragala waayo reer dhisan baa tihiin reer dhisanna waa loo ducayaa waxa wuu imanaya isqabadkaa imanaya wax kale boobkaa imanaya ducadaa kusoo koobaya ducada ilaahay subxaana watacaala ilaahu gacmaana kor u taagayna ilaahu wadaanu ku baryayna ilaahu addoommadaadii yaryaraa baanu nahay ilaahu kuwaad candhuufta ka abuurtay baanu nahay ilaahu awood malihin ilaahu ada awood leh ilaahu horta noo dambidhaaf dunuubtayadii dunuubtii waalidkayo ilaahu noo dhaaf ilaahu na ilaali meelaanu joognaba ilaahu dalkii dadka noo hagaaji ilaahu ubadka noo hagaaji ilaahu ooriyaha hagaaji ilaahu odayaasha hagaaji ilaahu na toosi ilaahu xaqa nagu dil ilaahu anagoo muslima na oobso ilaahu naxariistaadaan ku wejeysan ilaahu kuwaas ku naxariista naga yeel ilaahu reeraha dhisan noo deji ilaahu kuwa soo socdana noo deji ilaahu kuwa kala tegana isu soo saqir ilaahu naga yeel kuwa ubadkooda iyo oryahooda u naxariista oo qalbigu u dabco oo ilaaliya oo xaqooda siiya ilaahu kuwii wax dulmiyaha naga yeeli yaa rabbi ya allah ilaahu kuwii wax dulmiyaha naga yeeli ilaahu dulmi baanu kaa magan galla ilaahayow makhluuqaadka noo saqir jiliyaysiba ilaahu waxaanu ku weydiisanaynaa naxariistaada rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar ilaahu caafimaad kaamil qof walba wuxuu ka cabanayo ilaahu si oon macsi lahayn ilaahu qof kasta muraadkiisa oon macsi lahayn gacanta ka sar yaa rabbi ya allah ilaahu qof walba meeshuu ka buka u bogsii ilaahu qof walba meeshuu ka buka u bogsii ilaahu adaa quluubtooda dadkoog ilaahu qof kasta dhibkiisa adiga ilaahu ka dulqaad yaa rabbi ya allah ilaahu qof walba dhibkii haysta ka dulqaad ilaahu farij ugu bedel ilaahu waasac nolosha uga dhig ilaahu cibaadada nagu hagaaji